magacayga waxa la dhahaa Maryam Maxamed Xasan ana gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bari shirkan oo ka dhacay madaxtooyada uu cilaamiyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu ku saabsanaa ururada bulshada khaasatan ururada haweenka heer gobol heer degmo xaafadaha waxa laga tashanayay wadanka wixii horumarintiisa ah iyo hawlihiisa iyo danihiisa waxa madaxweynuhu la kulmay ururada haweenka waxa ku weheliyay wasiirada